daawadayaal ku soo dhawaada channelkeena aqoon maal media halkan aan ku falaqeyno maalin walba wararkii u dambeeyay ee ka dhacay daafaha dunida. warkaan maanta falaqeynayna waxa kamid ah waa sidee xiriirka cusub ee u bilowmay Mareykanka iyo Turkiga kadib khilaaf dheer oo soo jiitamayay muddo sanad ah. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay inuu aaminsan yahay in dalkiisa uu albaabada u furayo xiriir cusub oo Mareykanka la yeesho. waxa uu ku tilmaamay Erdogan kulankii uu la qaatay madaxweynaha Mareykanka ee Joe Biden magaalada Brussels ee looga hadlayay shirkii NATO toddobaadkii hore mid wax ku ool ahaa. waxa uu intaas ku daray madaxweynaha Turkigu inay dalkiisu ka go'an tahay inay ka faa'iideysato jawiga wanaagsan ee la gaaray kulankii uu la yeeshay Biden, iyada oo la xoojinayo marinada wada hadalka ee looga hadlayo heerarka kala duwan. madaxweynaha Turkiga ayaa carabka ku adkeeyay inaysan jirin waxaan la isku haleyn karin oo ku saabsan xiriirka Turkiga iyo Mareykanka, isla markaana aagaga iskaashiga labada dal ay ka balaaran yihiin arrimaha la isku hayo. Erdogan ayaa tilmaamay inuu u xaqiijiyay Biden mowqifkiisa adag ee Turkigu ka taagan yahay nidaamka difaaca cirka S-400 ay ka soo gateen waddanka Ruushka iyo diyaaradaha dagaalka ee F-35 ee Mareykanku farsameeyo, taasoo sanadkii hore laga saaray Turkiga. wuxuu carabka ku sii adkeeyay Erdogan in dalabka kaliya ee Turkigu wato uu yahay in laga ixtiraamo xuquuqdiisa madax bannaaniyeed ee dhinacyada siyaasadda iyo dhaqaalaha oo dhan, isla markaana lagu taageero halganka uu kula jiro ururada argagixisada ah. Erdogan ayaa tilmaamay in Ankara ay gacan siisay 9 milyan oo maangeliyadoon ahaa gudaha iyo dibadda Turkigaba. waxa uu tilmaamay sidoo kale in Turkigu qayb ka qaatay dadaalo lagu doonayo xasiloonida iyo nabadda gobolada waqooyiga Afrika iyo Bariga Dhexe. xiriirka Mareykanka iyo Turkiga ayaa xumaaday sanadkii hore. arrimaha la isku dhaafi waayay waxa kamid ahaa soo iibsashadii Turkigu soo iibsaday nidaamka difaaca cirka ee S-400 iyo sidoo kale khilaafaadka siyaasadeed ee Syria iyo in Turkiga lagu eedeeyay inuu ka xadgudbay xuquuqda aadanaha. waxa sidoo kale waxyaabaha la isku hayo kamid ahaa dacwadaha ka socday Mareykanka ee lagu beegsanayay bankiyada kuwaas oo ay badankoodu lahaayeen dowladda Turkigu. dhinaciisa Turkigu waxa uu muujiyay cadhadiisa ku aadan Mareykanka oo hubeynaya dagaalyahanada Kurdiyiinta ee Suuriya iyo inay Mareykanku diideen wareejinta mucaaradka Turkiga ee fadhigiisu yahay Mareykanka. waa ninka lagu magacaabo Fethullah Gulen oo Turkigu ku eedeynayo inuu ka dambeeyay isku daygii afgambigii ee 2016 ka dhacay waddanka Turkiga. xiriirka ka dhaxeeya Turkiga iyo Mareykanka ayaa cirka isku sii shareeray kadib markii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu aqoonsaday bishii hore dhacdooyinkii Armenia ee 1915 ee inay ahaayeen xasuuq ka dhan ah bini'aadantinimada, taas oo ka cadhaysisay Turkiga.